oo aan ka cilbaxnay gumaystihii caddaanka ahaa 1 Luulyo iyo 26 Juun 1960. وحتمي أيانتي نفايت القرن نحري بين وماذا خلصي مني وحتمي أيانتي لبدو ساعاتي أرنتين وصوتي waxaa curatay xilligii aan cadowga iska saarnay isla markaana noqonay jamhuuriyad calan leh caruur iyo ciroolana farxad ay ku caweeyeen dhaxaa ceel cunaha na kala jaray nimaan inaga ahayn caradeena dhex cararay waa bahal gumaystuhuye waa bahal cadowgiye dagaal colaad iyo caqli u kaashanay wuxuu curad iyo ciroole naga dilo cagta u saarnay oo ceerinay gesiga dhulkiisa gusha u horseeda gerida dishaay gedka haqo u gabraara qadax gumaysigu ku dhunta dalabsada xumaanta gedkooda bo waa maalin ciido caradaynu leenahay cirka iyo dhulka laga wada ciyaare waa maalin ciido caradaynu leenahay cirkeeniyo dhulkeenaba laga wada ciyaare waa kii aynu rabnee kifaaxiisa galnee Soomaalay kulligeen kulmiya la suray waa kii aynu rabnee kifaaxiisa galnee waa kii aynu rabnee kifaaxiisa galnee Soomaalay kulliga kulmiya la sude kadaba dhahay dhaxaan baqay sida dhuufaan ahayo dharaartan asaagay dhinac galay ku dhirirsaday Soomaan soo dhicin dharaartan waxyeeladii dhaqdhaqnay calankan dhidbay Soomaan soo dhicin dhaxaan baqay sidan dhuufaan ahayo dhigahay qaranka dhowrsanaye harsan asagay dhinac galayaan ku dherersaday sowmaa soo dhicine dhulka soo anigu malihi dalka soo anigu malihi gumaystaha dhacaya geeridu dhibaysa waqtigii dhamaayay uu dhaqaaqi doona ninkii dhoof ku yimid baa geeridu hadda geeridu dhibaysa
26 Juun 1960 xorriyaddii koowaad waxaa heshay ama heleen gobollada waqooyi oo gacanta uu ku hayay gumaystihii Ingiriiska ahaa. Kowdii Luulyo 4 cisho kadib gobollada koonfureed isla sanadkaas 1960 ayaa iyana xorriyaddii ka helay gumaystihii Talyaaniga waxaana laga taagay ciidda dalka calanka buluga ah ee xidigta cadi dhexda kaga taalo waa calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya. ereydii markaasi loo tirshayna waxaa ka mid ahayd sareeyow manusqaamow aan siduu yahay eegne ka nasiibkana saar. kadib waddankii waxa uu yeeshtay dowlad madax bannaan noqotay Soomaaliya mid ay ka baqaan dowladaha dariska. Soomaaliya inkastoo aan loo oggolayn sideedii hore hadda iyo nidaamkeedii qarannimo, haddana dadkeena Soomaaliyeed markasta waxa ay ku dadaalaan sidii midnimo qaran iyo dowladnimo buuxda loo heli lahaa. soo gudbinta barnaamijkan waxaa gacan ka geystay Cabdirasaaq Maxamed Xasan Cabdirasaaq Barduro, waana munaasabadda 1 Luulyo iyo 26 Juun xorriyaddii iyo xornimadii dalka Jamhuuriyadda Soomaaliya. waxaa timid ayaantii inagoo itaal daran xoreeyey eebbe ummadaha la simanee. waxaa timid ayaantii labadu is ahaatee arrinteennu toostee. waxaa timid ayaantii inaga ta aynu ururnay calankii gumaystihii irdaha ka saarnay. ninkaga tegayaa fanaanada codka macaan Hibe Maxamed Gudoon Hibe Nuura. waxaa timi ayaantii inagoo itaal daran xoreeyey eebbe ummadaha la simanee. waxaa timi ayaantii labadu is ahaatee arrinteennu toostee. waxaa timi ayaantii labadu